puntland ayaa shacabkeeda ugu baaqday inay hubka qaataan qoryaha sifaystaan saliidaystaan isla markaasna ay dagaal u diyaar garoobaan waxaan la wadaagi doonaa hadalka puntland waxay ugu waday iyo cidda cadowga ah ee puntland ay shacabkeeda ugu baaqaysa in laga hortago isla markaana ay puntland leedahay duulaan bay nagu soo yihiin ama dagaal bay nagu soo qaadayaan waa inaanu u diyaar garoonaa haddaba qoladaasi waa tuma iyo sida ay dadku uga falceliyeen iyo cidda loo qaatay markii hore ay shacabku u qaateen iyo sidoo kale dawladdu oo mar kale ku celisay hadalkaasi waxay ugala jeeday iyo cidda ay sheegaysay inay cadu tahay warbixin baan idinkaga hayaa arrintaa iyo falanqayn guud waxaan kaloo aad la wadaagi doonaa barnaamijkeennada aad ku maqli doontaan puntland ayaa waxa ay sheegtay gaar ahaan madaxweyne Danay ayaa amar wuxuu ku bixiyay in ammaanka iyo nabadda gobolka mudug gacan bira lagu soo celiyo isla markaana magaaladaasi wax laga qabto dilalka shaqaaqooyinka afduubka iyo dhibaatooyinka gare ee gobolkaasi caadada ka noqday ee ku soo laalaabanaya warbixin ayaan idinkaga hayaa muuqaalkan like saar channelkeena subscribe saar magacaygu waa Shukaadan Guray taariikhduna waxay ku astaysan tahay 23 bisha Abriil 2026 haddii aan warka bilaabo xalay waxa hadlay Puntland wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Qarjab ayaa hadlay wuxuu ka hadlay xaaladaha guud ee wadanka ka jira gaar ahaan Puntland dhibaatooyinka horumarka iyo caqabadaha iyo ammaanka ayuu ka hadlay laakiin hadalka saameynta yeeshay dad badanna ay si weyn u qaada dhigeen warbaahintuna ay si weyn u faafisay waa hadalka markuu wasiirku uu dadka reer Puntland ugu baaqay inay hubka sifaystaan qoryahoodana ay diyaarsadaan dagaalna u diyaar garoobaan isagoo oo si markaasi adag u yiri waa inaynu diyaar garownaa waana lagu soo wajahan yahay dabcan hadalkaasi wasiirku ciduu ula jeedo waa dawladda federaalka gaar ahaan dawladda federaalka ee uu hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu wuxuu leeyahay duulaan bay soo tahay annagay duulaan ugu soo tahay weerar waa inaanu ka hortagnaa oo calaashan hadalka wasiirka waxa laga dhadhansan karaa in dawladda federaalku ay sidii koonfur galbeed oo kale doonaysa inay dawladda federaalku ay Puntland u weerartay isla markaana maadaama aysan isla socon ama Puntland iyo dawladda federaalku aysan iswadan dawladda federaalku ay doonaysa inay awood ku muquuniso ee Puntland arrinta ayuu wasiirku isagoo ka hadlayay wuxuu leeyahay waa inaynu diyaar garownaa shacabow waa inaynu diyaar garownaa oo aynu markaasi ka hortagnaa in dawladnimadeena la burburiyo dagaalna lagu soo qaado bal marka farqayn baan qaybta dambe ku dari doonaa iyo ma dhici kartaa arrimahaas iyo waxyaabaha la filan karo iyo dawladda federaalka ee dabcan waxyaabaha markaas u qorshaysan waxa kale aan eegi doonaa sababta hadalkan Puntland xilligan ka soo yeersiisay laakiin bal aan dhageysano wasiirka arrimaha gudaha Puntland hadalka markuu lahaa daqiiqad yar qof walba qorigii dhulka ka yeel ha safaysto saliid ha barsado difaacna u diyaar garo 25 casho dawladda aynu dhisannay aynu ku qasaarnay ka harsan 25 cashaan ma leh caawinay ka harsan xildhibaanadiina waa dhammaaday waqtigoodii ma jiraano taymki waa ka dhacay meel caawa u socotana lama yaqaan meelay ku soo bulaaci doontana lama yaqaan marka bal 25ka si uun baa wax noqonayaane qof walba qorigii dhulka ka yeel ha safaysto saliid ha barsado difaacna u diyaar garo sawaan cidna ku duulayn waana hadda aan rabsho bilaabayn waana hadda dad salkicis ku jireen inaynu sidaa u wada diyaar garoonaa la rabaa inaynu talada ku wada diyaar garoonaa la rabaa inaynu iscafinaa la rabaa nasanaysta anagu wayna sanaysanaynaa وهجاج هل كان سنوات صلابة إن وزير كهرباء جودها بنتلان هذا الكيس وحي كعجبحي كومنتي وكساقر هذا كان وزير كوح كوسو أديا أيضا للسوورين أيوه إن دولة الفدرال كو أي مركان عندها كوسو جديد يسو بنتلان وأي دون يسمركي كونفورك بالبيت كسر في الحالتي عدة كحجين لهذا علشان قلب تقوي إسديب تهير شبلان وإسديب تكونفورك البيتنا ولا قاعد كذا لفت جرين شبلان يبنتلان يا صهراي هوري Jubbaland ay dawladda federaalka ugu fashilantay inay weerar ku qaaday ayaa ciidamadii federaalka waxa laga dhigay mid la dilay mid la dhaawacay mid jooga iyo mid jiifa iyo mid baxsaday marka dawladda federaalka waxa leeyahay markan Puntland ay tijaabinaysaa Puntlandna waxay ku abuurtay ciidamo fara badan oo dawladda federaalka taageersan iyadoo ay Puntland raalli ka ahayn ay ciidamada dawladda federaalka qorato calashan nidaamka federaalka wadanku mar walba waa Soomaaliya oo Puntland waa Soomaaliya Jubbaland waa Soomaaliya waa isla wadankii laakiin mar walba waxa leeyahay hab wada ogolo oo ciidamadu ku jooglayaan si ka baxsan hababkii heshiiska lagu ahaa ay ciidamada dawladda federaalka u qoratay Boosaaso Garoowe Gaalkacyo
galdogob baa ugu dambeysay ay maalin ka hor ciidamo kaga dhawaaqeen inay dowladda federaalka taageersiin marka isku celcelis ciidamo aad u fara badan oo kun ka badan ay dowladda federaalka u jooga Puntland sida markaasi xoguhu tilmaamayaan ciidamadaas inkastoo ay kala duwan yihiin meelo kala duwan ay joogaan haddana waxay Puntland u aragtay inay yihiin ciidamo ay u diyaarinayso inay Puntland ay dowladda federaalka ku carqalayso ama ku weerarto sidoo kale laba maamul oo dowladda federaalka taageersan ayaa labada cirif ka xiga dabcan waa waqooyi bari oo dowladda federaalku saaxiib yihiin ciidamo ka joogaan ciidamo ka soo dejin karto wax walbana ay ku samayn karto iyo sidoo kale galmudug ayadana dowladda federaalku iswataan istaageersan yihiin dabcan arrimahaas marka arrintaas ay dowladda federaalka weeraradeedaas iyo halkaas waa meel ay ka imaan karto Puntland ay halis u aragto walibana hadalka marka wasiirku oranayay wuxuu ku sugnaa gobolka mudug oo uga digay dadka inay markaas aan la soo dhaxmarin indhahooduna u soo jeedaan laakiin hadalka wasiirka dad badan waxay u qaateen inuu galmudug oo arrimo qabaa'il inta badan iyo dadka Puntland degaa ay dhaxmaraan inuu wasiirku uga jeeday haloo diyaar galo dagaalka oo dagaal qabiil uu hurinayay laakiin hadalkiisu sidaas ma ahayn asiga qudhiisuna wasiirku waa ku celiyo wuxuu sheegay inuu arrimo qabiil iyo galmudug oo daris iyo dad iyo wax walba ay ka dhaxayaan uu ka hadlayeen ee dowladda federaalka oo arrimo siyaasadeed la isku hayo uu lahaa waa inay hadiyadu ugu soo duuriso oo maamulnimadeena ay doonto inay burburiso waa inaan ka hortagno sidaas oo la jooday biyo qarjab oo hadlay mar kale halkaas wax marka wax marayaan kulay aragtiyihiina waa maasantiin waxa kale oo eegaya maamulka gobolka mudug gudoomiyaha gobolka mudug baa hadlay waxa uu yiri madaxweynaha Puntland baa waxa uu la kulmay waxa laalaya waxa wasiir agaasime xildhibaan ka soo jeeda gobolka mudug ayuu garow kula kulmay madaxweyne Dani wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu gobolkan ammaankiisa wax ka qabto xaaladihiisa wax ka qabto ammaan kara oo gacan bir ku qabto gobolkaasna sidii loo gacanta loogu dhigi lahaa ammaankiisa marka waxa la soo warinayaa gudoomiyaha gobolka mudugna sheegay in ciidamo fara badan oo booliska birmadka iyo ciidamo daraawiisha iyo sidoo kale maca ciidamada BMPF ka loo yaqaano in gobolka mudug la keeni karo oo dowladda federaalku keeni karto ciidamada aad ku faraha badan ammaanka gobolka inay wax ka qabtaan isku dhacyada qabaa'ilada dagaalada qabiilada dhexdooda ka dhaca waxyaabaha noocaas oo kala dowladdu inay wax ka qabato waa mid ay ku dadaalayso sidoo kale gobolka cirif ku yaala ciidamo federaal jooga dowladda federaalka mar walba ayaga in ciidamadaasu ay saldhig halkaas ka samaystaan oo ay soo noqon dowladda federaalka hadii soo weerarayso garow kala tusaale in ay sahan mar soo gaalkacyo ay kaga hortagi karto ayadana waa qarin kale oo ay markaas Puntland xoojinayso gobolkaas ciidankiisa ammaankiisa iyo difaaciisa hadii ahaan lahayd hab ciidan hab ka hortaga caqabadaha waxa ugu dambeeyay dhacdooyinka dhacay gobolkaas iyadoo dilalka hore ay uga dhici jireen aanooyinka qabiilka waxyaabo badan ka dhici jiray wixii ugu dambeeyay oo qada ka dhacay afduubka dhakhtar u shaqeynaya hay'adda aan xuduud lahayn ee MSF gaar ahaan isbitaalka guud ee gaalkacyo ka howlgalayay oo habeena ka hor maleeshiyad beereed ay intay afduubteen ilaa imika gacantooda uu ku jiro ayagoo afduubkaasna u sababaynaya inay doonayaan in dowladda Puntland ay sii dayso nin kale oo markaas dowladdu gacanteeda ku jira oo haysato kaasi dowladdu ay sii dayso ay kan isaguna cadaadka saareen ayagoo hab qabaa'il ka eegaya mar walba وما سنتي الخير مقال كان انت سكوسو غوغوينا برنامجكنا لايك سار جنالكنا سبسكرايب سار هداد هوري سارتي waa mahadsantahay hadaadan saarina iminka saar